بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الصوماليات مال بيك جوغان حرمت السجين الصوماليات waxay ku talagashay in beriyo ku beegan 14 Oktoobar oo ahayd maalintii midoobeed kuwa fooda Soomaaliya ee waxba galabsan galab lagu laayay iyagoo howlada caadiga ah wata saas darteed maadaama aysan ka soo wareegatay waxaan jeclaysanay inaan dib u xusuusino dadkii sababtoo ah maalinkaa madow marka qiyaasa sameeyo mana ilaalinta Ameerika ka dhacday tii ku xigtay ahayd waa loo gaay intii loo sameeyey mana ilaalin darteed dagaalada la qaaday umada loo laayay si walba loo sameeyey innagu maadaama Soomaali nahay weli cadowgii saayna yalay waxaad moodaa weli inuu sidiisii yahay hase yeeshee waxay noqotay maalin Soomaalida is xusuusato noqoto maalin wadajirkii iyo walaalnimadii Soomaaliyeed in loo xusuusto waxay noqotay maalin qof walba Soomaali u ogaaday cadowgaasi inuu yahay cadow guud aan qofna u naxayn maalinka waxay noqotay maalin ku qofoo dhalinyaro u badan oo mustaqbal filaysay loo laayay si arxandarra ah iyo waxba galabsan marka waxaa lagu garanay inay noqoto xusuus loo xusuusto mar aan ka go-in qalbiga Soomaalida xusuus ay ka helaan isjeceyl iyo wadajir iyo Soomaalinimo waxaan aragnay inay noqoto maalin qof walba oo Soomaaliya uu xusuusto dhiigga ku daatay meeshaas ay ku daarayeen cadowga Soomaaliyeed ay noqoto maalin qof walba isla mar u riixin dadka cadowga ah inaysan ummadda Soomaaliya u kala soconeen diin ahaan iyo ahaan bay isugu soconeen ay yihiin cadow guud oo raba in Soomaaliya ay tirtiraan waxaan rabnaa marka inay noqoto xusuus qof walba oo Soomaaliya qalbigiisa ka gooy xusuus qof walba Soomaaliya maalinkaas uu akhriyo faatixada quraanka u akhriyo dadka ku geeriyooday xusuus ay noqoto in calanka buluuga in weerar lagu yahay ee aan la rabin dadka cadowga ay rabaan in Soomaaliya baaqiyaan saas ayaa waxaan garanay in maanta aan xusuusino ummadda Soomaaliyeed ka tacsiin intii dhimatay isugu tacsiin intii dhimatay intii ku dhaawantay intii ilaahay caafina alxamdulillah intii weli jiftara ilaahay u caafiya siiyo sabar intii Soomaalida ka sabarto dadkii qoysaskii iyo familida ka dhintayna in aan yidhaahdo way garab taaganahay ay noqoto maalin Soomaali isku tashato waxaan leenahay Soomaaliya ha midoodo iyo silsiloobi ha ogaat har cadow inay leedahay cadowgaas oo ah kuwa aan rabin Soomaalinimada waxaan leenahay Soomaaliya ha midoodo Soomaaliya ha midoodo Soomaaliya ha midoodo